habdhaqanka xukuumadda hadda jirta ee uu ra'iisul wasaaraha ka yahay ra'iisul wasaare mudane xasan cali khayre waxaan dhihi karnaa muddo sanado badan waa xukuumaddii ugu qallafsanayd ee soo marta saxaafadda Soomaaliyeed waxay ula dhaqmaan hab adag ma dabagalaan kuwa wariyaasha dhibaateeya waxaad ogtihiin in 15 bishii Oktoobar ama bartamihii sanadkii bishii Oktoobar haddana soo dhaaftay wariye la yiraahdo Cabdalla Muumin ayaa maaragtay xafiiska ra'iisul wasaaruhu laftiisa dad ka tirsan ay u hanjabeen ilaa hadda wax baaris laguma sameeynin waxaad ogtihiin wariye in lagu dilay beerta nabadda halkaas ee Xamar Jajab oo niman askar ay toogteen ilaa hadda meel dabagal loogu sameeyay ma jirto xukuumadda wax dabagala iyo wax war ay ka keentay malaha sida suuragal u tahay wariye shaqo nin ku jira booliis oo shaqo ku jira in la yiraahdo lama garanayo qofkii wariyaha dilay waa arrin ku talagal ah isla markaana raali laga yahay sida noogu muuqata xukuumadda hadda jirta waxay u go'doontay inay wariyaashu kala qaybiso inay maaragtay ururadii suxufiyiinta iyo dadkii ay soo dhex galaan oo la kala qaybiyo waxay sameysay laba arrimood oo waaweyn hore aan u dhicin kow inay caburin ku sameeyaan wariyaasha Soomaaliyeed oo la caburiyo oo qaar la dhigay in la caburiyo iyo sidoo kale qaar la laaluushay oo inta maaragtay mushaar bila loo qoray bishiiba loo qoray ama suxufiyaha ama saxaafadda ahaato isla markaa loo diiday inay runta sheegaan waana arrin kale oo walaac muujinaysa oo ay gaar u tahay xukuumadda hadda jirta sidaa daraadeed ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed wuxuu u arkaa arrimahan inay yihiin arrimo aad xasaasi u ah sababtoo ah haddii wariye la waayo qof maaragtay ka hadla arrimaha masuqmaasuqa ka hadla dabagal ku sameeyo waxyaabaha iyo xaqiiqooyinka jira ee wariyaasha ay noqdaan kuwa maaragtay qaarna la laaluusho qaarna loo hanjabo runtii waxay noqonaysaa arrin keenaysa in xitaa qatar ay gasho dawladnimada Soomaaliya sababtoo ah waxaan ka hadlayno waa wax u damaanad qaaday maaragtay xeerka iyo guud ahaan dastuurka Soomaaliya u degsan sidaa daraadeed waxaan ka codsanaynaa guud ahaan laamaha ay qusayso sharciga hadday yihiin baarlamaanka gaar ahaan guddiga warfaafinta sidoo kale madaxweynaha oo sharci ilaalihii inay arrimahan soo fargeliyaan oo xukuumadda hadda jirta dhibaatada ay ku hayso suxufiyiinta iyo suxufiga Soomaaliyeed maaragtay laga qabto isla markaana fargelin lagu sameeyo oo wax weyn laga qabto haddii kale waxay noqonaysaa in xaaladdu ay adkaato oo wax awoodi waayo in cid wax ka qabata waa yaabanahay culays badan ayaa saxaafaddii Soomaaliyeed soo saaray dad badana maalin kasta noo yimaado oo sheegay in loo hanjabay saxaafadaha hoos noogu yimaada xukuumad maaragtay annaga ma wada dhahin xukuumad guud ahaanteed waaye laakiin waa dad ku jira xukuumaddii ama wasiirro ka ah ama maaragtay shaqooyin kale ka haya marka haddii xukuumaddu ay arrimahaasi wax ka qaban weysay waxaan rabnaa cidda ka sarreysa inay wax ka qabato oo wariyaasha Soomaaliyeed maaragtay xorriyaddooda iyo madax bannaanidooda loo madax banneeyo isla markaana la soo daayo wariyahan maanta la xiray maaragtay toddobaadka iska xiran ee wax sharci uusan ku xirnayn sababtoo ah wariyaha haddii sharci loo hayo oo dambi lagu haysto hal la keena maxkamadda laakiin ciidan maxkamadda la keenayn waxay u muuqataa inay tahay jujuub waana hab muddaba la soo waday oo la doonayo in saxaafadda Soomaaliyeed lagu cadaadiyo saxaafadda Soomaaliyeed waa ku celinaya maanta waxay ku jirtaa meel khatara waxaana u sababa xukuumadda hadda jirta sidaa darteed qof kasta oo maaragtay Soomaaliya waxaan u sheegaynaa in aanay adkaan doonto in saxaafadda Soomaaliyeed wax shaqo ay qabato oo ay noqon doonaan qaar la ragaadiyay iyo qaar la laaluushay meel maaragtay saxaafadda Soomaaliyeed la isku hadlayna ay awoodi wayso haddii dhibaatada hadda jirta laga dulqaadi waayo intaasuu ku saabsan yahay shirkeena jaraa'id aad iyo aad u mahadsantiin halla kusoo dhawaada dukaanka caanka ee Nilis Furniture Design Nilis Furniture Design waxay idin soo bandhigayaan ololaha cusub ee bisha November gaar ahaan dadka isguursanaya oo doonaya inay gurigooda alaab cusub dhigtaan waxaanu diyaar u nahay inaanu caawino dadka mar loo isguursanaya si uu gurigooda u qurxoonaado